door wanaagsan haysta oo dhantiin meel kasta oo dunida ka joogtaan fadlan haday tahay daawashada kugu horeysa channelka subscribe inoo saar like share comment oo asxaabadan u gaaro intaas oo ku maasantaa maalmahan waan champion leagueynina sida u jeedaan isbuucii hore iyo isbuucaanba marka shalay shaxdeena waxaa ku soo diray 14 bisha September oo ugu dambeysay oo maanta oo ah aan iraade oo ciyaaraysa Milan marka maanta ayay ciyaaraysa waxaan noo saaran badis 6 kooxood oo shalay 5 kale guuleysatay halkaas Cambia u fadhina insha Allah wayna guuleysanaysaa sida rajaynayno marka maanta waxaan rabaa sidoo kale maanta 6 kooxood ayaa sidoo kale miiska inoo saaran sida u jeedaan events waa 6 kooxood halka uu disku yahay 5.59 marka waxaan rabaa in isla falanqeyno asla fiirino waxa ugu horeeya Maccabi Haifa iyo Paris Saint-Germain Maccabi Haifa oo tookadii horeeta masbuuci horeeto lagu soo dhuftay 2-0 waxaan ugu soo badisay Benfica iyo Paris Saint-Germain oo 2-1 ugu soo badisay kooxda Juventus ayaa wada ciyaaraya caawa marka shaxdayna VAB-da waxay sheegaysaa in ay caawa ay Maccabi ay ka badi karto Paris Saint-Germain ay badi karto marka guud ahaan ciyaarta waxaan saarnay caawa in kooxdan hore loogu soo dhuftay 2-0 ku soo dhuftay Benfica ay caawa laga badi karo mar kale Paris Saint-Germain ay badi karto maadaama waxay yihiin Champions League soo soco waxa ku soo xigta kooxda labaad waa kooxda Real Madrid iyo Rezen Paul Sport Lesberg kooxdan lahaay marka Real Madrid tookada horeeto 3-0 waxay ku soo qabatay Celtic kooxda lahaay Celtic halka Lesbergna iidan 4-1 ay ku soo lagu qabtay Shakhtar Donetsk iidan ugu badisay waliba ayadoo gurigeeda joogta macnaha looga badshay marka maadaama Real Madrid oo naqaano koox weyn oo inta badan Champions League xataa 3 mar isku qaaday taariikhda koox qaada ay tahay iyadoo gurigeeda joogtana caawa Lesberg oo horay 4-1 iyadoo gurigeeda joogto lagu qabtay Shakhtar Donetsk marka ciyaarta guud shaxda waxay sheegaysaa in caawa Real Madrid mar kale ay badi karto ka badi karto kooxda Lesberg marka guud ahaan ciyaarta waxaan u doornay sida u jeedaan Real Madrid inay badi karto tan saddexaad waa Manchester City iyo Borussia Dortmund Manchester City kooxdani tookada horeeto Sevilla ay waxay ku qabatay 4-0 Sevilla ayaa waxa lagu garaacay 4-0 City ayaan ku badisay tan kale Borussia 3-0 iyadana kooxda Copenhagen lahaay ayay idin ku soo garaacday marka labadoodaba guul ayay soo wada gaareen marka Borussia Dortmund iyo Manchester City waxa adag markasta City ay adag laakiin waxaan waa kubad waa championkan markasta waa ka xamaasad badan yahay horyaalada kale ay ciyaaraan kooxaha marka guud ahaan ciyaarta waxaan dhahnay one half si fiican u fahan one half post team to score ayaa leedahay meeshan sida u jeedaan waxaa noo saaran one half post team to score inaysan imaan karin oo Manchester City iyo Borussia Dortmund one half in iska dhali karin maadaama ciyaartan boqolkiiba 76 waxa leeyahay waxa badi karta City laakiin waxaan waa ciyaar marka aniga fikirkeygu waa sidaan marka aad saarto waa ka dhigi karta saaxiib laakiin fikirkeyga sidaan ayaan ku qiimeeyay soo soco waxa kale ku soo xigta Rangers iyo Napoli marka Rangers oo tookadii horeeto 4-0 iidan lagu soo qabtay waxa ku soo qabatay isbuuc horeeto kooxda Ajax oo xalay Liverpool 2-1 ugu badisay ayaa ku soo qabatay marka Rangers oo 4-0 lagu soo qabtay tookadii horeeto oo ugu badisay Ajax iyo waxa wada ciyaaray caawa Napoli oo iidan 4-1 ku qabatay Liverpool Napoli hadaa xasuusata tookadii horeeto waxay ku badisay 4-1 waxayna ugu badisay kooxda Liverpool oo taqaanaan marka Napoli way badinaysaa ma dhaheen hadana caaw mar kale waxaan waa ciyaar haday hore u badisay micnihiidu maahan inay xilli walba badi karto waxaan waa ciyaar marka waxaan ku saadaalinaynaa ciyaartu aad waxaad ka dhigi kartaa way badinaysaa hadaad ku kalsoon tahay waa dhigi kartaa laakiin waa ciyaar waxaan hal mar
haddii qofka ama kooxda hal mar day badis xilli walbaba inay iska daba badiso macquul ma wixii macquul waa dhehena wixii kalena waa iska dhaafeena. Napoli waa away sida u jeedaan, marka Napoli ciyaarta guud waxaa noo saaran badis ama bareejo. waxaa kale oo ciyaaraya Milan iyo maxaa ku yiraahdaa Zagreb u jeedaan Soomaa. marka Milan iyo maxaa ku Dinamo Zagreb Milan oo tookada horeeto kooxdan lahaay maxaa ku yiraahdaa Salzburg ayaa 1-1 ee la soo gashay, halka Dinamo Zagrebna ee Chelsea ugu badisay 1-1 halkii Everki ay ka dhalisay ay ugu diirto waqtina ugu dhamaaday. marka Chelsea guud ahaan ciyaartan kuma soo darin oo Chelsea hadda aniga kuma kalsoon oo koox lagu kalsoonaan karan hadda ilaa ama gurigeeda ha joogto ama away ahaato. marka aniga Chelsea adiga waa ku darsan kartaa, laakiin aniga batata Chelsea iyo Sevilla waa ka soo tagay labadaasba. marka lixdan kooxood ayaan soo qaatay. marka Milan way badinaysaa, laakiin waxa u saar double chance waxay tahay meesha kale hadda oo shaxda kale oo inoo taalo ayaa waxay ku jirtaa Milan way badinaysaa. marka maadaama taas hore ay ku jirto tanne waxaa u soo qaatay inay badin karto ama bareej ay geli karto, laakiin adiga waa ka dhigi kartaa way badinaysaa ama bareej oo gelaysaa waa ka dhigi kartaa. marka guud ahaan ciyaarteen sidan ayaan maanta aan ku saadaaliyay. soo marka falanqeynteena adigana qayb ayaa ka tahay, waxba ka bedeli kartaa, waxna ku dari kartaa saaxiib. marka waxaan waa ciyaar marka wax saadaalisid waxba kaaga baxaayo, marka adiga waxa ku darsan kartaa hada isleedahay maxaa ku leedahay kooxdan kale hadda ugu dambeysay Milan oo kale ani wax qaba way badinaysaa, laakiin maadaama xagga noogu jirto ana iskaga dhaafay waa dhihi kartaa way badinaysaa. Napoli oo kale maybe ani wax qaba way badinaysaa, laakiin wax walba wax isleeyahay wixii macquul ayaa wanaagsan, haddana ana wax ka reeb sida u jeedaan that's that. marka koodkina waa kana wakaasa koodkii guuleysta aad waa mahadsantihiin. soo dhawaada markale door wanaagsan.